kula wanaagsan daawadayaal qodobada wararka xilligan waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland oo si maamuus dhaafay loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa kadib markii heshiisyo waaweyn uu ku soo saxiixay dhulka Israa'iil arinta safarkiisa oo dood xooggan ay ka taagan tahay maanta madaxweyne Cirro arintaasi dhagjal uma siinin oo waxa Hargeysa loogu soo dhaweeyay sida boqorkii oo kale haddaba waxaa la wadaagi doonaa wax walba oo ku saabsan soo dhaweyntii maanta Cirro lagu sameeyay magaalada Hargeysa oo si aan hore loo arag oo madaxweyne Soomaaliland nuuciisa aan hore loogu soo dhaweynin maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ninka sidaas loo soo dhaweynayo waa nin tagay magaalada Qudus oo aqoonsaday inay tahay dhul Israa'iil ay leedahay haddaba sideebay dadweynuhu ay kaga falceliyeen soo dhaweyntii Cirro ay dadka reer Hargeysa maanta u sameeyeen barnaamijkeena ayaynu ku soo qaadi doonaa dowladda Soomaaliya waxay amar dul dhigtay dalalka Carabta iyadoo ku wargelisay in aan sinaba Soomaaliland wadan Carbeed uusan ugula tacaamuli karin sida dowlad madax bannaan oo kale yacni in wadan kamid ah wadamada Carabta in aysan xiriir la yeelan karin Soomaaliland oo wax walba oo Soomaaliland ay kaga baahan yihiin ay tahay inay soo maraan dowladda federaalka Soomaaliya warkan wuxuu soo baxayaa iyada oo qaar kamid ah dowladaha Carabta lagu tuhmayo inay ka shaqeynayaan qorsho lagu aqoonsanayo Soomaaliland barnaamijkeena ayaan idin wadaagi doonaa go'aanka adag ee ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo waxaan idin haynaa maxaa ka jira wararka sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo ay ka dejisay garoonka diyaaradaha ee magaalada Galdogob xog dheeri oo intaan ku aadanna waan idin soo gudbin doonaa soo dhawaad saaxiibayaal haddii aad saaxiibnugu cusub nagu soo biir muuqaalka like saar artada waxaysan ugu dhib qaybta hoose faalada dadweynaha aynu ku bilowno wararkeena magaalada Hargeysa waxaa si maamuus dhaafay loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro kaasi oo weli muran uu ka taagan yahay safarkii uu ku tagay magaalada Qudusta la haysto Israa'iil ay sharci darrada ku haysato haddaba safarkiisa iyo waxyaabihii uu halkaas ku soo sameeyay oo in badan oo kamid ah wadamada Carabta ay ka dhigeen iyo qaar badan oo wadamada dunida ah oo Falastiin ay kamid tahay iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo si adag uga hortimaaday talabadaas oo ay u aragto xadgudub ka dhan ah madaxbannaanideeda ayaa maanta isaga oo tabashleynaya Cirro wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa balse waxaa cajiib ahayd qaabkii aan caadiga ahayn ee maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa muuqaalkan ayaa ku baahay baraha bulshada iyo sawiradan waxay muujinayaan Cirro oo si maamuus dhaafay loo soo dhaweeyay sida in uu keenay oo dunidii uu Soomaaliland kaga keenay aqoonsi buuxa oo maamulkaasi uu helay haddaba dadweynuhu siyaabooyin kala duwan ayay kaga falceliyeen dadka qaar ayaa heer markaasi aan caadi ahayn xitaa gaarsiinaya arinta oo ku sheegay in taariikhii Israa'iil iyo sidoo kale diimaha Yahuudda in uu Cirro soo urursaday oo uusan wax aqoonsi u sidin dadka reer Soomaaliland ee jadbaysan ee sidan waliba u soo dhaweeyay haddaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadka reer Soomaaliland farxadaas iyo rayreenta iyo soo dhaweynta aan caadiga ahayn oo u sameeyeen Cirro ka qastay waxaana ay soo saartay go'aan culus haddaba go'aankan wuxuu ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaana lagu farayaa ama la hordhigayaa dhammaan dowladaha Carabta in aysan wax tacaamula oo toos ah la sameynin Soomaaliland haddaba tani maxaa laga gol leeyahay waxaa laga gol leeyahay si dowladda federaalka Soomaaliya u xoojiso xiriirkeeda dowladaha Carabta ee salka ku hayo arinta galka Soomaaliland qaar badan oo kamid ah wadamada Carabta ayaa ka fakaraya inay xiriir ganacsi la yeeshaan Soomaaliland iyada oo aan la soo marin dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana dhacdooyinkaasi ku daboolan qaar kale oo dowladaha Carabta kamid ah oo lagu xatay Imaaraadka inay ka shaqeynayaan qorshe lagu dibindaabenayo dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina lagu kala goynayo dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya oo Soomaaliland aqoonsigii Israa'iil ay ka heshay waxaa lagu xataa in Imaaraadka doorka ugu weyn uu ka qaatay waana sababta soo dejisay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda waddanka Imaaraadka xiriirkoodii uu go'o marka qodobkaas waa qodob muhiim ah go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ka soo baxay maamuuskii aan caadiga ahayn maanta loo sameeyay marka la eego Cirro arrinta hoose ee nagu reeb kartaa dhinaca kale
magaalada Galdogob wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ay la wareegeen gebi ahaanba ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Galdogob iyada oo maamulka Siciid Cabdullaahi Deni haddana xaalad cusub uu wajahayo oo dhinaca iyo Galdogob kaga imaanayso wararka la helayo waxay sheegayaan in xaaladda halkaasi ka taagan ee xaalad ciidan ah ay sabab u tahay qorshe dowladda federaalka Soomaaliya doonaysa in gebi ahaanba garoonka ay kula wareegto xogta qaar waxay ku waramaysaa in garoonkii magaalada Galdogob la wareegay halka wararku qaar ay sheegayaan in wali markaasi ciidamadu ay garoonka tageen laakiin aanay si buuxda uga wareegay gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee magaalada Galdogob goorta aad daawanayso waxaa laga yaabaa in gebi ahaanba ciidanku ay garoonka la wareegeen oo ciidanka taabacsan dowladda federaalka Soomaaliya Puntland dagaal adag ayay kaga jirtay in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya dhaqdhaqaaq ay ka sameeyaan deegaanadeeda waxaan xogtu ay sheegaysaa hadda inay dhaqdhaqaaqooda xoojiyeen Galdogob qorshe wuxuu yahay in laga dejiyo ciidamo aad u tiro badan iyo hub aad u culus oo lagu talagalay taliska qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu hogaamiyo General Jimcaale Jaamac Taakar haddaba xaaladda cusub ee soo wajahday Siciid Deni ayaa laga baqdan qabaa inay cirka isku sii shareeto dhaqankii maamulka Puntlandna afka ay furteen waxaana ay sheegayaan in lagu soo duulay nidaamkooda siday hadalka u dhigeen inkastoo dowladda Soomaaliya ay xaq u leedahay in ciidanka qaranka meel walba oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ay tagaan haddana Puntland waxay ku andacoonaysaa inuusan jirin heshiis la galay oo ku aadan dhismaha ciidan qaran oo heshiis lagu wada yahay iyadoo cabsi ka qabto ciidankan inuu noqdo ciidan koox gaar ah u shaqeeyo oo uu isticmaalo madaxweynaha muddaxileedkiisa lagu muraysan yahay Xasan Sheekh Maxamuud haddaba warbixinadaas oo idin la aragtayda hoos ayaa noogu reebi kartaa xaaladda Puntland iyo dowladda federaalka iyo dhacdooyinka kale ee kasii horeeyay ee maamuuska waalida ah ee cirar loo sameeyay ay ka mid tahay magacana barnaamijka inta lagu kulmi doonaa qiyaasta qiimaha iyo qadarinta naga badanow waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo